muuqaalkan ila daawo. هذه جلسة تنظيف في صالون في إثيوبيا. الله تبارك الله إجابتك وأنا حسوسا كور سود هذا ما شاء الله تبارك الله هنقول اللهم بارك استيمكي ولا جارو قفتها بحيتر مروكان باك لأباهنا الدون كسر لقوا حير ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله إلهه إيش كهاي إلهه إيش كقوم مقعد إيش الله كهاي صون قاضون نبض qof ku xirxiran almuniyo oo yacni la xirxiray sidoo kalena waxaa yaala geesaha kiimikayaal kala duwan kalar ayuu nooc waxaaba meesha yaalo marka ma ahan sida uu sheegayo wuxuu yiri Ethiopia waa sidaan sida la iskaga nadiifiyo oo sidoo kale saalonyaasha ay sameeyaan Ethiopia maahan Soomaali waa kommentiyaasha Soomaalida markay arkeen fuustadan inay riixeen oo sidoo kalena u riixeen dhankaas Ethiopia commentiga soo galeen commentiga marka waxay leeyihiin anaga naqaano Ethiopia ku yaala booli ku yaala adresskiisa siinayaan xataa laakiin sax ma Soomaali waa horta maxay tahay waxyaabahan la sameeyay sidoo kale waxaa jiro dadka dhibaato u keeni kara bulshadana aysan ogeyn waxyaabo la isku daraayo oo hadhowtii qofku ka qaadayo cancer jirkiisa cancer ku dhici karo haye maadooyinka la isku daraayo ma taqaanin marka dalkeen waxyaabahaas ku soo badanayo dadka Soomaalida marka waa inay baraarugan oo ogaadaan maadooyinka la isku daraayo iyo faa'iidada iyo khasaaraha qosolka noo dambeeyo laakiin caafimaadka dhalinyarada loo marinayo maanta berri waxa ku dhici karo alla og Sweden oo kale hada markii kareema laga keeno Soomaaliya oo kale way diidaa airportka waxa la yiraahdaa may maadooyin waxa ku jira cancer aaba Soomaaliyeed oo soo qaaday waxa lagu yiraahdaa aabe waxa ku jirta maado cancerka laga qaado caruurta ma rabtid inay cancer ku dhacaan marka waan ka tuureena saasa looga tuuraa aabahan Soomaaliyeed marka ma fiicino waxyaabahan oo kale